السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada dhammaan walaalaha ku xidhan channelkeena saan cusub. Walaalayaal mowduucan maanta waxa ku saabsan yahay sidee uga dhigaa telefoonkayga mid aan ka faa'iideysto. Sideena uga dhigaa telefoonkayga mid aan xagga wacan mar walba ka faa'iideysto. Walaalayaal mowduucan maanta waxa ku saabsan yahay intaas. Waa mowduuc aad iyo aad u muhiim ah. Qof kastoo bilowdan waxaan rajaynayaa inuu dhameysto si uu uga faa'iideysto mowduuca. Walaalayaal si aad mobilka uga faa'iideysato waxaan ku soo koobaynaa 4 qodob oo muhiim ah oo haddii aad raacdo aad ka mid noqonayso dadka mobilka xagga wacan uga faa'iideysta. Walaalayaal adduunka imika wuu horumaray waynu ognahay. Qofka mobilka haddii uu dhinac xun u adeegsado wax xun buu ka soo baxaya oo hadhow wax xun buu qof xun buu noqonayaa. Hadduu dhinac xun adeegsado wuu adeegsan karayaa, hadduu dhinac wacan u adeegsadana wuu adeegsan karayaa. Wax walba wuu kaga faa'iideysan karayaa oo cilmi iyo wax walba waxbarasho ah. Walaalayaal marka si aan mobilkeena uga faa'iideysano aan bilowno qodobadan ay raacno haddii aan rabno inaan mobilkeena ka faa'iideysano. Lambar 1 waxaan ka rabno mobilka waa inaan xadidnaa. Maxaan ka wadnaa? Qof walba oo mobil isticmaalo waxaynu ognahay inuu internet isticmaalo. Marka internet haddii aynu isticmaalo markaynu galayno aynu xadidna waxaynu rabno maxaynu rabnaa. Waayo internet waa magaalo dhan oo haddii aan la galo aan laga gayoonayn oo aan laga baxayn. Haddii aad mar gashana saad uga baxdaa waa aragta. Marka waxaad ka rabto xadido. Muxaadaro yar baan dhageysanayaa, sheekh yar baan ka faa'iideysanayaa. Xadido waxaad ka rabto internetka. Kadib haddii aad qodobka xadidato waxaad ogaataa inaad mobilkaaga ka faa'iideysato waxaad isu horseeday kala badh ka faa'iideysi mobilkaaga ah. Qodobka ku xiga walaalayaal ee loo baahan yahay qofku inuu sameeyo ama aynu sameyno si aynu uga faa'iideysano mobiladeena waa inuusan mobilku ilowsiin nafteena. Maxaan ka wadnaa? Walaalayaal qof walba hadaf ayuu leeyahay oo hadaf ayuu nolosha ka leeyahay. Marka haddii aad mobilka ku mashquulsho iyo waxaan gaalka uu soo sameeyay aad waqtigaaga oo dhan ka bixiso wuxuu ka luminayaa hadafkaaga iyo targetkaaga aad ka lahayd noloshan. Marka yuusan ka lumin mobilku hadafka aad ka leedahay nolosha ee ka digtoonow oo iska ilaali oo noqon mid mar walba iska jira oo dhinaca wacan ee targetkiisa ka mid ah uga faa'iideysta. qodobka ku xiga walaalayaal mobilku yuusan ilowsiin wax akhrinta. Walaalayaal wax akhrintu imika meel walba ku jirtaa. Mobilka ka dhex akhrin kartaa, buugaag baad ka dhex akhrin kartaa. Wax akhrinta way fududaatay laakiin si haddii badanaaba mobiladeena ayaa in ilowsiinayna wax akhrino oo waayo waynu galaynaa hariya habeen ka bixi mayno aroortii ilaa habeenkii. Marka walaalayaal haddii kale waxaynu ilowsiinayaa mobilku wax akhrinta wuuna inaga luminayaa nolosheena iyo targetkeena. Marka aynu iska ilaalino inuu inaga lumiyo mobilku hadafkeena nolosha. Aynu iska ilaalino oo yuusan ina ilowsiin wax akhrinta iyo inaynu wax kaga faa'iideysano. Qodobka ku xiga ee loo baahan yahay inaynu sameyno si aynu uga faa'iideysano mobilkeena waa inaynu mobil ka dhiganaa madraso ama iskuul aynu wax ka barano. Maxaan ka wadnaa? Walaalayaal waynu ognahay maanta casharro ayaa duuban oo mobilada ku jira meel walba. Google ay ku jiraan, YouTube ku jiraan, Facebook ay ku jiraan. meel walba haddii aad gasho casharro faa'iido leh aad ka helaysaa. Marka mobilkaaga ka dhigo madrasa ka dhigato mid aadan u baahan cid wax ku marisa adigu wax isu mari mobilkaaga ka marso. Kadib maalmo kooban waxaad arkaysaa adigoo wax ku bartay oo ku noqday khabiir dhinac walba kaga takhasusay waxbarashada. Marka walaalayaal waa 4 qodob oo aad iyo aad u muhiim ah haddii aynu tadbiiqinana waxaa laga yaabaa inay aad iyo aad inoo anfacdo. intaas ayuu mowduucan ku saabsan yahay maanta. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. Haddii aad ka heshay like noo saar, haddii aad ku cusub tahay channelka saan cusubna subscribe noo dheh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.